Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa mid ka mid ah feeryahanadii ugu caansanaa taariikhda. Maxamed Cali Kalaay wuxuu dhashay 1942 wuxuuna ku dhashay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky. Waxaana islaamnimadiisii ka hor lagu magacaabi jiray Cassius Marcellus Clay Jr. wuxuuna qaatay diinta Islaamka sanadkii 1965 kadib markuu ka adkaaday dhigiisa Sonny Liston markaa oo ay da'diisu ahayd 22 sano jir. Maxamed Cali Kalaay waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid ahaa feeryahanadii ugu caansanaa ee ka ciyaaray fagaaraha feerka, wuxuuna bilaabay xirfad ahaan isagoo ay da'diisu tahay 18 sano jir, sanadkuna uu ahaa 1960kii. halkaas uu ku qaaday horyaalka Mareykanka kuna guuleystay bilada dahabka ee ciyaarihii Olombikada. waxaana loo yaqaanay inuu yahay ninka feerta gacanta ugu dhaqsiyaha badan uguna adag. Feeryahankan wuxuu ku guuleystay magaca ciyaartooygii qarniga isagoo ku guuleystay koobka adduunka 3 jeer in ka badan 20 sano. ciyaaryahankan waxaa laga joojiyay ciyaaraha feerta 1967 markii uu ku guda jiray guntii iyo gabagabadii guulihiisa. sababta keentayna in ciyaaraha laga joojiyo waxay ahayd inuu diiday inuu ka mid noqdo ciidanka Mareykanka iyo inuu diiday inuu ka qayb galo dagaalkii Vietnam. wuxuu dib ugu soo laabtay ciyaaraha sanadkii 1970kii. ciyaartiisii ugu horeysayna waxay ahayd ciyaartii lagu tilmaamay ciyaartii qarniga oo wuxuu la ciyaaray dhigiisa Fraser, waxaana loogu magac daray magacan maxaa yeelay labadooduba horey looma garaacin. laakiin waxaa markaa guusha hantiyay Maxamed Cali Kalaay. ciyaaryahankan ayaa 4 jeer guursaday dumar kala duwan, halka guurkiisii ugu horeeyay uu ahaa 1962. islaantaasoo ahayd mid maqaaxi ka shaqayn jirtay, laakiin guurkoodii wuu dhammaaday sanadkuna markaa wuxuu ahaa 1966. kadib wuxuu guursaday Belinda Boyd oo gacantiisii ku qaadatay diinta Islaamka, laakiin guurkoodii wuxuu dhammaaday 10 sano kadib. ku dhawaad 1977 waxayna iska dhaleen 5 caruur ah. sababta ay u kala tagaanna waxay ahayd guurkiisii Veronica ee sanadkii 1975 ayadoo u dhashay 2 caruur ah. Maxamed shaqadiisa iyo noloshiisuba waxay soo afjarmatay markii uu haleelay cudurka Parkinson. cudurkaanna wuxuu ka hor istaagay inuu sii ciyaaro ciyaarihiisa, sidaas daraaddeed wuxuu ku dhawaaqay inuu ciyaaraha ka fariistay 1981. ereyada dhaxalgalka ahaa ee lagu xasuusto Maxamed waxaa ka mid ah: saaxiibtinimadu waa waxa ugu adag ee adduunka lagu sharxo. maaha wax aad ku barato iskuulka, laakiin haddii aadan baran macnaha saaxiibtinimadu, marnaba waxba noloshaada kama baran. haddii aad rabto inaad duusho, u duul sida balanbaalista, oo haddii aad rabto inaad wax xoqdo, u xoq sida shinnida oo kale. markaan niyad jabo, waa nici jiray daqiiqad kasta oo tababar ah, laakiin waxaan dhihi jiray ha quusan, hadda dadaal, halyey noqo, noolow inta nolosha ka dhiman. noloshu waa qamaar, mar walbana ha u malayn in ay wax xun kugu dhacaan. qofka aan helin naftiisa ama aan ogaan waxa uu yahay, nolosha kuma guuleysan doono wax walba uu rabo.